waa Cabdullaahi Ciid Maxamed Socdaal barnaamijku waa barnaamijka su'aasha sodolnida ah maanta mikrofoonka waxa la dhax qaadayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho soo dhawo telefishinka UBD magacaaga saddexan Ahmed Xasan Mohamed waa ma santaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal sodolnay ah su'aashan waxa u dhacaysaa Soomaali sida uu ognahay xurmadu waxay qaadatay 1960 ilaa 1969 talada dalka waxa gacanta ku hayay dawladda shacabka ay soo doorteen 1969 ilaa 1991 islamida talada dalka gacanta waxa ku hayay dawladda military markii la isku daro waxay noqonaysaa 30 sano noqonaysaa 30 sano 1991 ilaa 2019 Soomaaliya waxay ku jirtay burbur iyo soo kabasho 30 sano soo socota Soomaaliya u baahanaa wallahi aniga hadii aan fikirkeyga ka hadlo 30 sano oo soo socoto 30 hore oo military aan soo marnay 30 burbur aan soo marnay waxa u baahanahay 30 sano oo cadaalad iyo dimuqraadiyad iyo xornimo leh markii laga hadlo militariga waxa ka maqnaay cadaaladda ma aysan maamulaynin dadka markii laga hadlo burburna cid wax maamulaysa ma jirtaba marka 30 sano soo socoto waxaan rajaynaynaa inay noqoto 30 sano oo dadku ayagu ay cod leeyihiin wixii ay rabaan ayagu ay dooran karaan wixii ay rabaan ayagu ay go'aan ka gaari karaan ayna u fududahay inay sameeyaan intaas okay aniga taa fikirkeyga ama ra'yiga ka dhibto maadaama aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda horumarka ama nolosha u baahan ma sha Allah horta ifaalo fiican baa muuqato iyo dawlad fiican baa noo muuqato midda kale rajadeyda haddaan ka hadlo Soomaaliya aad iyo aad baan u rajaynaynaa inaad dawlad fiican noo dhalato dawlad noo soo saarta khayraadkeena dawladda aan kaga faa'iideysan khayraadka dhulkeena ama badeena iyo barigeena uu noo leeyahay oo dalkay intaba anfacdo oo horumarna siiso oo si fiican Ilaahay nagu garab istaago baan Ilaahay ka baryana ka rajaynaynaa himiladeenna saas weeye 30 sano soo socda wuxuu ahaa doon isbedel weyn oo Soomaaliya guuleyn u horseedi doona ayaa dhici kara wuxuuna maraa 3 marxaladood oo waaweyn marxaladda koowaad waa 2020 ilaa 30 inta u dhaxayda waana bilowga maxaan ku leedahay isbedelka iyo isu diyaarinta isbedelkaas waxa hogaamin doona dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu ka faa'iideysanaya maxaan ku leedahay gahan dhalinyarada wax bartay oo iminka aad u moodeen u soo dhaqaaqayaan marka ilaa 2030 laga gaarayo isbedelku bilow ayuu ahaa doona ayaga ayaa maxaan ku dhaqaaq badan sameey doona 30 ilaa 40 inta u dhaxaydana waxa waay dhaqaaqooda xilliga ay mir dhalin noqonayaan waayo dhinacyada siyaasadda aad uga muuqalahayeen 2000 ilaa 40 ilaa 50 inta u dhaxaydana waa xilligii maxaan ku leedahay taabagalka ay noqon lahayd oo maxaan ku leedahay oo Soomaaliya xilligaas 2050 waxa rajaynayna noqotay awood dhaqaale iyo mid diblomaasiyad oo guud ahaan qaaradda Afrika iyo mid goboleed intaba marka 50 ilaa 30 sano soo ku siman tahay aad baan Soomaaliya uga han weyn aniga marka koobaad horta waxaan salaamayaa TV-ga UBD marka labaad hadii aan ka jawaabo su'aasha ay weydiisay 30 sano soo socota waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed oo midowda Soomaaliyadii la arki jiray inaynu helaan u baahanahay hadda Soomaaliyada jirta waa iska maqaar saar laakiin 30 sano soo socota waxaan u baahanahay Soomaaliyada saxda ahayd kala dambeysay wax wada lahayd sidii ummadda Soomaaliyeed la arki jiray wax walba ka dhaxeeyeen taaba ma garanaysaa intaan sugeynaa insha Allah waan gaaraynaa 30 sano soo socdo dabcan waxaan rajaynaynaa inay soo baxdo mid ka qurux badan 30 sano hadda aan soo dhaafnay aha burburka waxaad moodaa kabashada inay haatan noo bilaabanayso 30 sano soo socotana waxaan rajaynayaa dabcan in aan meelaha sare ka soo gali doono adduunka caalamka oo idil yaani meelaha ugu horeysan nabad ha noqdo sare u kac ha noqdo waa dareemi kartaa magaalada Muqdisho ayadoo ku jirta dhibaatadaas haddana waxa jirta inay sii korayso magaalada waan idinkaga mahadcelinayaa su'aalahan aad ku muhiimsan in dadka la weydiiyo maskaxdooda la baaro waxyaabaha mustaqbalka qofka uu wiigsanayo inay noqoto mid burbur iyo inay noqoto mid wanaagsan dabcan badanaa dadkana waxaan rajaynaynaa wanaag waxaan rajaynayaa 30 sano soo socoto dabcan inteenan haatan meeshan joogno halkan ciid baa ah dabcan ciid waa muhiim laakiin waxay noqon doontaa dhalwada muraayad ah yani aad u qurux badan يعني قف والبنا وكوريون دون إن شاء الله تعالى إنه شقة كسر دونته مقالة مقدسة يجودها سومالي إن شاء الله. إن شاء الله يعني صدق سنة ساعة وحافل الناس سومالي هذا ونكسن أو معركة أمديسن تاسونه وحيكون إيمان كرتا هرتا يعني معركة إسفان كشعب كأيو وحيكون حرنتا أيو معركة دولة أيو معركة يعني كل سجال بقول لحدن كي يهدد دتك إسكو عركتنا ماهن إسكو فكرنا ماهن إسكو عقولنا ماهن وحلاقي أبا كل سجال بقول يو كل سجال بقول يلحدن كي dadku inay iska ahaayeen dad ma aragtay aan fikrad dawlad iyo tusaale iyo talo cidna ay weydiin markii la rabana in uu iska afgambisay dawladda markii la rabana shakhsi kale loo dhiibo laakiin maanta dadku waxay u baahan yihiin in ra'ayaal badan la cabiro oo shacabku waxyaabaha ku qanacsan yihiin
iyo ma haddii aan ka hadla khaasatan Soomaaliya horta wax walba waxa la yiri mas madaxa laga dilaa maantana magaalada Muqdisho ayaa meesha madaxeed ah Muqdishona shacab ay leedahay dhalinyaro ay leedahay odayaal bay leedahay ganacsiga ay leedahay waxgarad bay leedahay haddaan u soo laabano marka Muqdisho waa meesha aan talaabada koobaad ee 30 sano Soomaali fiican inaan ka helno ay nooga bilaabmi lahayd haddadan aan taaganahay waxaa jira caqabado waxaa jiro waxyaabo badan oo hor taagan inaan sidaan rabno u hadalno haddii ay tahay cabsi iyo haddii ay tahay garaad xumo marka sidaas la ajligeed waxa la rabaa dadka shacabka oo Soomaaliyeed inay yiraahdaan annaga waxaas way noo qaadmaan